ciidan isbishaal ah oo aad u hubeysan kana tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa goordhow gudaha u galay deegaanka Toorotoro oo ah fadhiga ugu weyn ee kooxda shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose. ciidan ka tirsan Danab oo xoogga dalka ah ayaa la sheegay in deegaankan ay galeen halkan oo ay ku yaalaan saldhigyo ciidan, maxkamaddii ugu weyneed kooxda ee gobolka Shabeellada Hoose iyo goobo kale oo muhiim ah oo argagixisadu ay lahayd. Toorotoro oo ah meel muhiim ah waxaa la sheegay in ciidankan ay galeen, waxaana la tilmaamay in argagixisada ay isaga baxday markii ay ka warheleen in ciidan ka tirsan militariga Soomaaliya halkan ay ku soo wajahan yihiin. shabaab halkan waxaa ugu taalay maxkamad, waxaana isaga kala imaan jiray dadyow badan oo ka baxa gobollada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe iyo meelo kale oo ka baxsan. howlgalkan oo ay sameeyeen ciidanka Danab ayaa waxaa laga helay sawirro, waxaana ciidanka ay gudaha u galeen magaalada, waxaana la arkay gaadiidka dagaalka iyo ciidanka xoogga dalka oo dhex socda gudaha iyo xaafadaha magaalada. isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsiin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga. waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga.